Textile neck syndrome waa warbixin caafimaad oo cusub waana in qofku xanuun badan uu ka dareemaa laf dhabarta gaar ahaan qaybta sare ee qoorta ku beegan. Badanaa waxa sabab u noqon kara isticmaalka faraha badan ee taleefannada, kombiyuutarada iyo waxyaabaha la halmaala. Waana in cadaadis badan oo ka yimid raaricinta madaxa oo fuulaa laf dhabarta qaybta kore ee qoorta ku beegan. Markasta oo qofku madaxiisa hoos u raariciyo, waxaa culays badan oo sii koraya qaybta kore ee qoorta laf dhabarta ku beegan, waxaana taas ay sababi kartaa in neerbayaasha ku jira qoorta cadaadis badan la kulmaan, kadibna qofku uu xanuun badan ka dareemo qoorta ilaa garbaha. Markasta oo qofku raaricinta qoorta hoos u badiyo, waa markasta oo culayska fuulaya laf dhabarta qaybta kore ee qoorta uu aad u bato. Tusaalahan sawirka ugu dambeeya, qofkan ayaa qoortiisa raariciyay 60 digrii, 27 kiilo oo culays ayaa qoorta saaran. Qaabka ugu fiican oo qofku uga taxadari karo ayaa ah in uu si toos ah u fadhiisto kadibna wax kasta uu akhrisanayo ama uu isticmaalo qaabkaas. Taas ayaa yareyn karayda xanuunka badan ee qoorta fuulaya. Haddii aad ka hesho xogtan kooban oo aan kula wadaagnay, fadlan subscribe noo saar channelkeena Xoga Caafimaad.